Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Dhammaan asxaabta ku xiran janaalkeena Som Gold Office waa idin islaamay. Islaam kadib waxaa qaadanaynaa casharkeena koowaad ama sheekadeena ugu horreysay ee luqadda Talyaaniga. Sheekadan waxay ku saabsan tahay gabadhan halkan idinkaga muuqato oo lagu magacaabo Sofia. Marka sheekada waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Ciao, waan idin salaamay. Sono Sofia, waxaan nahay Sofia. Mi piace andare, waxaan jeclahay inaan aado a correre orod ogni mattina subax walbo. Vedo sempre, mar walba waxaan arkaa un ragazzo wiil nel barco, waxaan ku arkaa meesha baarka ah. Ha i capelli neri, oo leh timo madmadow, e gli occhi iyo indho verdi cagaaran. Vorrei waxaan rabaa barlaaji inaan la hadlo, ma sono timida, laakiin waan xishoonayaa. Mar kale ku celinaya anigoo kala fasiraya ama fasiraada kala qaadayo oo erey walbana si u fahantiin u sharxayo. Ciao marka luqadda Talyaani la joogo ama Talyaani la joogo waxay u tahay salaan iyo laba qofood markay kala tagayaan oo kale bye way u tahay ama see you again way u tahay. Qof markuu ku sarkaan ciao way isdhihi karaan, markuu dambeeya kala tagayaan ciao way isdhihi karaan. Soomaaliya ama aan markaa yaraayo kale erayga ciao af Soomaaliya ma lihi jiray, labada qofood markay kala tagayaan oo kale ciao ciao bye bye ama lihi jiray. Laakiin barashada luqadda Talyaaniga markaa soo galay eraygan ciao waxaan ogaaday inuu yahay eray Talyaani ah oo loo isticmaalo markuu horeyso iyo markuu dambeyso labada qofood ee sarkayaan oo kale. Sono I am oo kale waxaan nahay Sofia ah. Mi piace oo ah waxaa jeclahay. Mi oo kale ama I piace waa like. Andare waa aaditaan waxay ka imaata verb andare. A correre orod iyadana waa preposition. Ogni mattina subax walbo, eraygan ogni waa every, mattina morning, every morning ama ogni mattina marka la dhahayo kale every morning isku noqonaya ama subax walbo. Vedo waxaan arkaa verbo vedere aragti, waxaan arkaa sempre mar walbo ama always English ahaan. Eraygan sidoo kale markaa yaraa markaa maqli jiray af Soomaaliya ma lihi jiray, qabla la dhahayo kale waraadiga sempre qalada ku jirtaa laakiin af Soomaaliya laakiin sempre ee dhahan laakiin waxay ka imaatay sempre mar walba. Un ragazzo wiil nel barco meesha baarka ah. Baarka waxaa loo yaqaanaa meesha lagu caweeyo ama shaaha lagu cabo ama qaxwada ama kafeega oo sidoo kale tan lagu nasto waxaa loo yaqaanaa baar. Af Soomaali ahaan waa macquul inaad maqasheen baar al hebel in la dhahayo kale. Baarna waxaa ma lihi jiray af Soomaali laakiin intuu ka imaaday. Ha i capelli waa timo. Nero way ka imaato madow. E gli occhi iyo indho eedan an camal waay iyo gli occhi indho verdi cagaaran waxay ka imaata verde kalarada marka la sharxayo. Vorrei waxaan rabaa eraygan vorrei waxaan rabaa barlaaji inaan la hadlo. Parlare ay ka timaado meeshaan verbo parlare oo hadalka ah. Ma sono timida, laakiin waan xishoonayaa. eraygan ma Talyaani marka la joogo waa but ama laakiin. Sono waxaan nahay timida qof xishoonayo, but I am shy camal. Laakiin waan xishoonayaa. Mar kale ciao, sono Sofia, waan idin islaamay, waxaan nahay Sofia. Mi piace andare a correre ogni mattina, waxaan jeclahay inaan aado orod subax walbo. Vedo sempre un ragazzo nel barco, mar walba waxaa meesha baarku ku arkaa wiil. Ha i capelli neri e gli occhi verdi, oo leh timo madmadow iyo indho cagaaran. Vorrei barlaaji ma sono timida, waxaan rabaa inaan la hadlo laakiin waan xishoonayaa. Waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. Gabadha waatana sawirka waxaa la soo qaatay qof xoogaa xishoonaya ama cabsanaya oo kale. Sawirkan wuxuu ka turjumaa qoraalka meesha ku qoran ama sheekadan. Hoos waxaa ku qoran haddii aad fahantay ku soo qor commentiga waan fahmay. Waxaan rajeynayaa
na fahanteen levelkana waa level A2